asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaan iyo si kastood ii maqlaysaan iyo aalad kastood igala socotaan waa tiiri examen c b r. maadadii waxay ku jirnaa qeybihii keeniska. waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo. waxaa la rajeynayaa insha allah 7 abriil 2025 in ay bedeli doonaan qaabkii imtixaanaadku qaadi jireen c b r. oo imtixaanaadka waxay ka dhigi doonaan sida sawirka kaaga muuqdaba halkan 5 taq faraaqa laga dhigi doonaa. marka waxaa lagaa rabaa 5 firtaq hood inaad soo bisa sidaas faad samayso. labadii imtixaan keniskii insiktiin oo isku daray. marka saaad u fahanto maxaa laga tegay ama laga tanasulay ama maxaa laga dhaafay, waxaa laga dhaafay keliya khibaar heer keninkii oo 25 su-aal ahay unbaa daaqada loo tuuray. markaasay plus 10 ku dareen oo marka hore 40 ahay su-aalahaas 10 bay ku dareen, marka 50 bay ka dhigeen. marka imtixaankaas cusub ayaa noqon doonaa. leer methodka waxba iskama bedeli doono, ama inhoutka waxbarashada ama kenis maxaa la dhahaa insikt waa sidiisi. marka faahfaahinta keniskeena ku jirnay. marka waxaan rajeynayaa qeybtan inay qeybta saddexaad ay tahay. marka walaalaha dhammaan inay ka faa'iidaystaan. kadibna waxaa la socon doona ufnin oo ah ufnin gaar ah filaya ama casharkii kale oo kaasayna keniska ka mid ahay unbaan raacin doonaa insha allah. waaya kenisaan kuu sheegay baa isagoo balballaarsanaan sheegi doonaa dhammaan halkan. kenis waa inaad garata. waxa waaye qeyb ka midaan soo daayay qeybahaas, laakiin si guud mujaamala keniskoo dhan muxuu ka kooban yahay alkhameyn inhoutkiisa halkan ku sheegay. si guud wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay veka broker. wadadayaa kula isticmaala. waxaa malaynaa dhowr casharaan ka suubiyay casharkan youtube-keena waa kala socon kartaa del eni del tubey malayna. veka broker macnaha jidkan yaa kula wadaagay. dadku kula wadaagaya waa sheegnay, waxaa niri waa bistudres iyo foodhanger. casharadaasa dib ugu laaban doontaa. waaya waxaa kaloo ku xiga bysonder veken. bysonder vekenka wadooyinka gaarka ah waxa soo hosgala military coloniga waa badan yihiin. marka isagana falanqeyntiisaan ku jirnaa, waa kusoo gaari doonaa. laakiin waxaa muhiima wuxuu ka koobanya dhammaan inaa ogaato. vekedelka markii lagu leeyahy qeybta koowaad bysonder veken jidadka gaara. jidad gaaraa jira, ma fahamte waxay gaar u yihiin. jidadka waa qeybsayin. jidadka waxaa waaye foransvek khlagvard crosspond wuxuu qeybsan yahay jidad sestak lagu socdo, kuwaas uu qeybsanyay jidad gaar ah. jidad waxaa jira oo basaska maraan keliya. jidad waxaa jira baaskiilaha maraan keliya. jidad waxaa jiraan tractorka maro. wadooyinkaasaa lagu magacaaba bysonder veken. vekedelta jidka wuxuu qeybsan yahay, macnaha jidka wuxuu qeybsan yahay rystro, wuxuu qeybsan yahay rybanen, wuxuu qeybsan yahay fluxstroke meesha dadka baabuurta kaa xumaada dhigtaan, iyo magaalada gudaheeda hadday tahay qeyb maxaa lagu magacaabaa fitsbad baaskiilaha iyo waxaasi kuu baraan. isagana waa dulist. veka broker jidka kula badaaga. manufri muxuu ka kooban yahay 6 qeybood horaan u sheegnay. waxaa la dhahaa sortiran, vekriden, barkiren, akhtar uitriden, ya infuqen uitfuqen ama inrid uitrid. intaasuu ka kooban yahay. manufriska wuxuu leeyahay sharciya gaar ah. wuu ka duwan yahay manufriga. qof lugeynaya haddaa aragto kasuqaad baabuur baarkin haddaa gelayso oo waddo aad ku socoto, qof kasta xitaa qofka lugeynaya wuu kaa leeyahy. haddaa rabto gadaal inaad u baxdo qof walbuu kaa leeyahy. haddaad doonaysa inaad inrid ka soo baxdo outrid gasho qof walbuu kaa leeyahy. arrintaasa markaan ku fogs garayn doonaa. markaa aragto qof lugeynayo oo lagu baray loo dhaha qof kastoo toos u socdo lugeynayo, qofka leexanayo baabuurta wuu ka leeyahay. oo qofka lugeynaya muhiimadda la siinayo sharcigan wuu ka duwan yahay. qofkii hore wuxuu ahaan jiray qofka lugeynaya haytanda ma hormari karin, laakiin manufriga markii la joogo wuu hormaraya. iska ilaali insha allah. failikh raadi. gaarigaada inuu failikh yahay waa muhiim, gaaray u tahay, ma fahamte. marka iyo reagirin not situation iyo falcelintaada markay xaalad emergency imaato.
shilaa dhacay baabuurkaa kaa xumaaday waxyaalahaad samaynayso waarisku likhti inaad daarta inaad faylikh blakis tahay meeshaad taagan tahay aakhin faylikh aydka inaad ku dadaasho iyo waxyaalaha lamidka imtixaanaadka keniska kanoo kale ka mid waxaa lagu dhahay waarkan faraaq baakhin shufeer siin darawalka intuu ka arkayo haddaa ayn ku jirto mistway of dri horta haddaa ku jirto maba ku arki karo sababtoo ah dee gadaashiisa socotaa maahino marka faraaq baagankana wuxuu u badan yahay inta badan meesha keentaa inta badan waxaa lagu magacaabo maxay ahayd dooda hoog geeska dhimashada sababtoo baaskiil hadduu number ayn ku jiro baabuurkan ma arkayo tubay hadduu ku jiro kasoo qaad uu leexanayo ma ku arkayo laakiin baabuur weyn haddaad tahay kor usoo kacsan marka ayn ku jirto si fiican ku arkayo marka kuwaasaa ka mid ah imtixaanaadkaas haddaynu isla fiirino marka keniska afartan arrimood inaad xooga saartaad u baahan saan soo sheegaba imtixaanka konton su-aala laga rabi doonaa dhammaan labada imtixaan isku jira 44 inaad saxdo 6 aad qalada farkeer deelnemer maxaa la dhahaa jidka dadka kula wadaagaya waa vehe brokerki waa soo ma ahin okay fanaa fortig gaarigaada yaa mas-uulka ah gaariga iskale adiga iskale bistuudara tahay sax aakhin arka adaa blastinkiisa fasekrinkiisa onderhoudkiisa abikaadiisa waxaasna adaa mas-uulka marka saddexa adooday ku kala qeybsayin franfortiga aydka waxaa ka mid ah baabuurka inuu insurance ku jiro fasekrin adiga inaad gasho shirkad gooniyaad ka gelaysaa ama amv ama qola lamid qeybta labaad oo ku xigta waxay tahay blasting gaariga adaa blastinga bixinayso blasting dentist adig kuusoo dirsanayo gaariga abk markii la saarayo qolooyinka underhoudkiis qaabilsan rdv lagu magacaaba oo right farkeer marka iyagana dentist iyaga markana si gooniya ula macaamilaysa marka right farkeerka ugu sareeyo isagaa ilaaliyo blastinka iyo fasekrin gaariga inuu ku jiro haddii gaarigaada fasekrinka laga saaro automatically rdv warqadii kuusoo dirayo haddii blastinka bixi weysana automatically waa laakiin blastinkii blasting denista ku shaqalo jeegadahay wax soo dira waaya milubavist gaarigaada inuu milubavist yahay oo hawada wasaqeyneyni enerjigiisa fiican yahay gaariga inuu koronto yahay ama uusan qiiq badan sii deyneyni sida baabuurta dieselka oo kale ahay qodobka u dambeeya wuxuu yahay forto kenis inaad garata forto gaarigaada gaariga muxuu ka kooban yahay gaari toyota wadataa gaarigaada meeragiisa muxuu yahay toyota okay toyota wuxuu kasii leeyahay wuxuu ku abtirsado ma toyota corolla muxuu yahay ma toyoto maxaa waaye muxuu yahay toyoto maxaa la socda lancer miya muxuu yahay luxer miya waxa la socdaa sheegaysaa markaasaa lagu leeyahay haddana baawiyaarkiis da-diis waa meeqa waa 10 jir miya 2010 miya baawiyaarkiis waqti u dhashay ama da-diisa mise waa 2025 marka gaarigaada fortig gaarigaada meeqa albaab buu leeyahay gaarigaada midabkiisa waa noocee gaarigaada motoorkiisa waa imisa gaarigaaga meequu jiidi karaa inhaad ama ma leeyahay trackhout ma leeyahay baasho wax lagu jiidayo intuu jiidaa culeyskiisa meeqa waay 750 rabaska caadiga gaarigaa culeyskiisa waa imisa 1.4 miya waxaasoo dhanaa laga rabaa inaad gaarigaada kala garato muraayadihiisa dashboardkiisa kuraasta waxaasoo dhan inaad kala fahmayso oo marka gaariga soo fuusho aada dhihin gaariga xagee ka daaraa marka kaasaa lagu maqa walaalaha dhammaan marka insha allah qeybtan keniska ah muhiim gaaray idin tahay idinka ilaahay waxaan ka rajeyn anii idinkaba inuu khayrkana waafajiya casharadiina sidaasaan u wadaynaa la socda walaalo badan baa igu soo celceliyay kenis muxuu ka kooban yahay dhahay marka keniskasaa la socotaba intaasaa arkaysu ka kooban yahay sharaxaadoodina way socotaa vehe broker waa sharaxnay insha allah cutubka labaad aan u gudbi doona 3 qaybood aan ka sameeya u malaynaa mise 2 qaybood kadibna kuwaan kale bysonder vehe delt manofri muxuu yahay failiqaad mid kastaba casharo gooni aan ka dhigaynaa intay lala noqoto walaalaha dhammaan meel kasta waxaa idinkaga tegay amaano allah